ummadda Soomaaliyeed meel baa joogta Ilaahay barakeeyo soo dhawaada daawasho wanaagsan waxaanu caawaraysanayna aqoonyahan wax kala Soomaaliyeed oo magaciisa la yiraahdo Turcase ayaan warsanay waxa wax ka weydiinayna dilkii dawladda Puntland ku sameysay niman al-shabaab lagu sheegay inay ahaayeen oo tiradoodu gaaraysay 22 Turcase soo dhawow waan ku salaamay waa dhawahay walaal aad iyo aad baa mahadsan tahay Mr. Geesod inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun ilaahay u naxariisto horta wiilashaas la laayay haddii xaqdarro ku dhinteen iyo hadday xaq ku dhinteen intaba ilaahay u naxariisto baan leenahay ma fahamtay waa dhinteen hadda waa naga hooseeyaan intaas markaa u gudbo dadkii ay ka dhinteen iyo eheladii iyo waalidiintii iyo walaalihiina samir iyo iimaan ilaahay ha ka siiyaan leeyahay intaas markaa intaa uga gudbo horta ma taageerayo dad argagixiso ma taageerayo al-shabaab iyo kuwa magacyada badan ii sheeg maxay ahaayeen daacish isis waxaas oo dhan ururdiimeedyadan wada maxaa macangaga oo dadka laynaya horta dhiigga dadka islaamka banaystay iyo cid walba dhiiggooda banaystay ma taageerayo laakiin aad iyo aad waxaan uga xumahay oo caawa uga muraada dilacsanahay oo la seexan lahay waxa weeye waa wiilashaas Soomaaliyeed ee la laayay ee laga baaqsan karay in la laayo xabsiyadana lagu hayn karay baan horta aad iyo aad uga xumahay oo ma waxa leedahay haddii ahaayeen al-shabaab ankeen in la dilo ma ahayn waxay ahayd in xabsiga lagu hayo yes midda aan taaganahay oo aaminsanahay baa midaas sababtoo ah maxay u soo kordhin lahayd waxa weeye aniga hadda wiilkayga ku jira maxay u soo kordhin lahayd baa leedahay waxay u soo kordhin lahayd xataa waxaa laga yaabi lahaa inuu soo hanuunayo mar dambe uu maxaan ku ihahdaa ama xabsigiisaas lagu hayo maxaad ka og tahay maxkamadda xukunka ku riday annagu lamaana soconin social media ku jirnaa nimankan maxay tahay sababta loo qariyay oo si degdeg ah loogu dilay maxkamad cadaalad ah oo Puntland ka jirta ama Soomaaliya guud ahaan ka jirta ilaadeer ma jirtaan ku leeyahay ma fahanteen ama waxa leedahay maxkamad maanta qof go'aamin karta qof inay disho Soomaaliya kama jirto Soomaaliya oo dhan marka isku soo duudutay maxkamad cadaalad ah oo wax toogan karta kama jirto haddii ay ka jirto waxaa la toogan lahaa wiilkii wasiirkii xildhibaankii allaha u naxariistay siraaji dilay baa la toogan lahaa haddii awood loo haysto waxa uu jeedaa hadda askari xiran magaalada Muqdisho ku xiran ee dawladda Soomaaliya xirtay ee la yiraahdo Aydiid oo dilayay wasiirkii dhalinyarada wax ku soo bartay waddanka Kenya qaxootiga ninkii dilay baa leedahay waa la dilaha way kaas loo toogan waayo kaas maxaa loo toogan waayo kaas oo soo noqonay kaas waan fahmay waan soo noqonaynaa example oo soo qaadatay hadda ma waxa leedahay nimanka la dilay maxkamaddii xukuntay ee dilku xukuntay go'aankaas ma gaari karto dilka ah go'aankaas wiilashaas lagu dilay dembigeeda dusha waxaa saaranaya madaxweynaha maamul goboleedkaas baa saaranaya iyo xaakimka xukumay baa saaranaya dembigeeda weligood yaalloodna kama harayo dembigaas ma ku jira sidoo kale nimanka maanta la dilay waxaa leeyahay qaar baan u dhalan maamulka Puntland ma la dhihi karaa maadaama Soomaaliya qabiil isku soo dishay welina qabiilkii meel lagu xalliyay isay jiray Soomaaliyana kala fadhido ay maamul u samaysatay qabiil ah oo lagu kala fadhiyo wiilashaas Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolada kale si qabyaaladaysan ayaa loo dilay ma la dhihi karaa way loo dhihi waa la dhihi karaa caqliga saliimka midaas wuu fakari karaa waa la keeni karaa sidoo kale waan fahmay sidoo kale laba koox bay isku jireen dadkii maanta la dilay qaar dil geystay oo al-shabaab oo dil lagu hayo iyo qaar kale oo ayagana isla al-shabaab ah oo dil lagu haynin laakiin dagaalamay markii la qabtay sidee labadooda loo dili karaa isku darajo u noqday in la dilo maxay tahay qof aan waxa dilin in la dilo waa cadaalad darrada meesha ka jirta iyo shakiga weyn wuxuu oo dadka ku taagan waxa weeye dadkan isku waqti lama qaban isku waqti maxkamad lama saarin maxaa intaas loo aruurinayay oo hal mar loogu shabaaxay intee sare xirnaayeen inta wax ka ogtahay intee sare xirnaayeen inta ugu badan iyo inta ugu yar ma noo kala qaadan kartaa ilaa 2017 baa dadkan meesha ugu aruurinayay ma fahamtay qaar fresh ku jira xataa oo aan maxkamad marin baa ku jira oo la iska dilay
oo la iska dilay baa ku jira. maxay tahay sababta loo dilay? sababta loo dilay waxay tahay waxaa ka jawaabaya sababtaas anigu ma rabo inaan malaha iyo dembi inaan ku galo ma rabo. sababta loo dilay waa baaritaan bay u baahan tahay in la baaro. waa fahmay sidoo kale maxay tahay sababta Siciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha maamulka Puntland uu u soo duubay muuqaalka iyadoo dad ilaahay karaameeyey la dilayo oo tiir la taagay in muuqaalkooda loo soo gudbiyo ummadda Soomaaliyeed? waa midda ugu daran. xataa hadduu naga khasban lahaa oo hoos ka gowraci lahaa wax dhan bay ahaan lahayd. laakiin bulshadii ummadda Soomaaliyeed oo dhan buu tusay. waa lagu baraarugay. caalamka oo dhan baa la yaaban. ma fahamtay adduunku waxa weeye qofka haddiiba cabuus uu yahay oo ama hala xukumo in sidaas loo dedejiyo ma aha. ma fahamtay waxa weeye waa wax laga xisoodo waayo. wax nidaamka adduunka ku fiican bini'aadamtinimada xataa kuma fiicna. islaamnimada xagga marka la iska dhigo bini'aadamtinimada xataa kuma fiicna. dadka dilka ku xukuman xataa muddaa la hayaa. ma fahamtay wax wara ma ka hayaan ehelkoodii ee ka maqnaayeen ee ku ogaayeen mise dhimasho iyo nolol meelnaysa ku ogeen oo dhowr iyo 10 sano ugu kadib maxaan idhaha dhowr iyo 10 sano ka hor ugu dambeysay inay al-shabaab ku biireen ma loo sheegay inay Puntland ku xiran yihiin Puntlandna dilayso? ma loo sheegay dadkaas? maalmo dhow adiga saacado dhow media si fiican ula soco. suxufi baa tahay xogogaal ah. media isha ku hay saacado dhow dad badan oo barooranaya. dad badan oo maxaan ku rahdaa cabanaya. dad badan oo haddii ilaahay kuusa mogol yahay carruurtoodii xaqdarro lagu laayay. dad badan oo maxaan ku rahdaa arrintaas ka hadlaya saacado dhow. iyo beesha caalamka laftirkeeda human rightska laftirkiisa oo ka hadli doono mar dhow. sug waxya waan aragnay dilkoodii si dheeldheel iyo kaftana loo dilaayay ee ku jirto in lagu faanayo dilkooda. maxaa loo arki waayay markii maxkamadda la saarayay si aan ula socono dambiyaday leeyihiin iyo magacyadoodii iyo ehelkoodii iyo qabiilkooda meesha ka joodaa? maxaa loo qarsaday kula tahay? waa waxyaabaha shakiga badan abuuri kara arrintaas. waa sax waxyaabaha shakiga badan abuuri kara weeye arrintaas. in la qarsado ma ahayn in bulshada loo soo bandhigay ahayd. ma fahamtay markii maxkamadda la saarayay? laakiin markii maxkamadda la saarayay arrimahooda dilalkii hore oo Puntland ay samayn jirtay sida kuwii kufsiga sameeyey oo kale si fiican baa ula soconay oo ay nooga dharjiyeen. waana ku qanacnay. dadkii maanta la dilay ee dhowr iyo 20 qof ahaa waxaa yidhaahay laakiin dadkii maanta la dilay calaamad su-aal weyn baa saaran. waan gartay halkaas. haddaan ka gudubno dadkii maantay la dilay waxaa la sheegay inaysan u dhalan maamulka Puntland ee u dhasheen maamulada kale sida koonfurta galbeed galmudug iyo sidoo kale Hirshabeelle. maxay tahay sababta kaliya ka dhigtay dadkii maanta la dilay inaysan ahayn dad u dhashay Puntland ee maamulada kaliya loo dilay? taas waxay caddaynaysaa runta markaan kuu sheego arrintaasi waxa weeye waxbaa ka jira. sababta oo ah waxa weeye Puntland ilaa iyo hadda kamaana maqal dad laga xiray been ku xiran al-shabaabnimo u xiran. maxaan ku yidhahdaa kamaana maqal wax qasho ah. qolan waxay leeyihiin wiilashii la dilay maxaa idinka galay oo uga hadlaysaan? waxay ahayn wiilashii Puntland oo Cumar Maxamuud. war Cumar Maxamuud dhiigooda yaa baneeyey? yaa banaystay? waa wiil Soomaaliyeed yaa baneeyey dhiigooda? yaa waxay ku leeyihiin Puntland bay ahaayeen. maxamuud salaam bay ahaayeen. Cumar Maxamuud bay ahaayeen. war Cumar Maxamuud yaa yiri hala laayo? Puntland miya arrintaas come on. okay dowladda Soomaaliya federaalka oo madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxaa ayada uga bannaan kiiskaas maanta la galay? kiiskaas waxaa uga bannaan dowladda ayada Soomaaliya oo dhan ayada dowlad ka ah. ma fahamtay ayada la aqoonsan yahay. wiilashaas cadaalad darrada ku dhintay waa in hadda loo qabtaa oo Puntland lala xisaabtamo oo wiilashaas lagula xisaabtamaa. yes markay noolaayeen looyradii ay haysteen aaway maxaa hadda looyr loogu qabanaya? looyr maysa haysanin. war hadda markay noolaayeen niman baa haystay oo macnaha xabsiyadooda ku haystay. ma fahamtay wax looyra looma qaban miya?
hadda maxaa loo qabtaa dadkiiba umay soo bandhigine midda kale ma looyar baa ka shaqeeya puntland aan ahayn looyarada siciidina xukumo no cid ka hadli karta male reer puntland baa maalin walba lagu abuyisaa lagu laayaa ma fahantay ya wiilkoo fur ka yimid oo maxaan ku rahdaa muxuu sheegayaa kuwii u dhashay deegaanka maalin walba lagu laayaa oo wariyaala suxufiyiina madaxa haddii ilahay kusoo bogoliya mas-uuliyiina ganacsataa baa maalin walba lagu laayaa waan garanay halkan waxaan ka wareysanaynay waxgarad tuur case aad buu u mahadsan yahay soo nagu falanqeeyey halkaasaan kusoo gabagabaynaynaa wuu mahadsan yahay waxaan ka wareysanayay sidii ummad soomaaliya u arkayso iyo fikirkooda iyo wuxuu ka aaminsan yahay aad baad u mahadsan tahay adigaa mudan geesood suxufi sare aad iyo aad baa waxaan rabaa laakiin inaan kusoo gabagabeeyo haddaadan ka bixin ya ku soco war soomaaliya war hooy war dhallinyarada yaanan laynin war dhallinyarada war cadaaladda ha shaqayso cadaalad baa loo baahan yahay haddii wax la dilaayo cadaaladdaa lagu dilo ya anugu ma taageersanin micnaha dhallinyaradan maxaan ku hadlaa wada afduubka noqotay ma taageersanin laakiin waa in cadaaladdaa ku dijaa sharci baa loo baahan yahay meeshaan dilku wax sahlan maaha dilku wax sahlan ma aha ya waa gartay waa hagaag daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waa maqlaysaan dilku wax sahlan ma ahan qofka bini'aadamka haddii la dilo ma soo noqonayo ruuxdan waa sidii loo dilay dilka in lagu degdegana anigu ma aaminsani maamulka puntland madaxweyne ka yimid saciid cabdullaahi deni waxaan uga fadhinaa inay noo soo caddayso dilkaas siduu ku dhacay maxkamaddii la saaray iyo dadkaas ehelkooda in loo sheegay iyo inta beri ay xirnaayeen qaar baa waxaa naloo sheegay inay xirnaayeen sanadkan hadda aan ku jirno gudihiisa in loo soo qabtay al-shabaabnimo haddana hore laga dilay wadamada gaaladaa ku noolnahay qofka dilka lagu xukumo 30 sano 40 sano 50 sano ayuu qaataa in la dilo dilka ma ahan wax saaran oo lagu degdego